hurdo hata waalan kara marka immunitygiis ayaa hoos u dhacaya. kulan wacan ku soo dhawaaw xubin kaloo xiiso leh. hurdo la'aanta waxaa laga dhaxlaa dhibaatooyin badan oo kala duwan. Dr. Matt Walker waa saynisyaanka maskaxda kuna caanbaxay baaritaanka hurdada. wuxuu sheegayaa in hurdada dhammaystiran ay faa'iido badan u leedahay qofka. haddii uu heli waayo hurdana uu dhibaato ka dhaxli doono. soo jeedka habeenkii waa wax khilaafsan sunnadii eebbe ugu talagalay bini'aadamka. eebbe wuxuu qur-aankiisa ku xusay dhowr meel in habeenkii loogu talagalay deganaan iyo hurdo, maalintiina nolol iyo dhaqdhaqaaqa. qofka bini'aadamkana labaduba uusan ka maarmi karin. fikradda qaldan ay dadku qaar aaminsan yihiin ayaa ah hadduu qofka habeenkii soo jeedo maalintiina uu hurdo inay ku filan tahay oo uu faa'iidada hurdada helayo. waayadan dadka waxay isku mashquuliyaan baraha bulshada iyo filimada musalsalka oo ilaa saqda dhexe habeenkii ama ilaa waa beriga lagu mashquulaa. waxaad arkaysaa dad facebookga isticmaalaya ilaa waqti dambe. dadkaasi waxa u suuroobaya oo keliya inay seexdaan 2 ilaa 3 saac. subaxii qofkaasi waxaa ku adkaanaya inuu soo kaco ama uu howlihiisa maalinlaha guto. haddaba waa kan dhakhtar ka hadlaya muhiimaddu ay leedahay in la seexdo 7 ilaa 9 saac habeenkii. horta jiifku waa muhiim. dadka da'ada ahna moqdo jiifkooda uu iska yar yahay waa acceptable, laakiin dadka kale oo mataqaana dadka da'da yar 8 hours minimum waa very important. hurdalaanta waan ogsoonahay ilaahay wuxuu noqday inaan saaxana habeenkii la nasto dharaartiina la shaqaysta. marka qofka haddii uu saaxan waaya maskaxda wuu ka daalaya, jirkana wuu ka daalaya, caafimaadkiisana way saamaynaysaa. maxaa yeele immunitygiisa ayaa hoos u dhaca. qofka haddii immunitygiisa hoos u dhaca marka waxaa la soo darsaya waxyaalo badan ay ka mid tahay caafimaad darro inay qofka ku dhaco. waxaa laga yaabaa inaad la sheekaysanayso dad aad jeceshahay oo aad iska dhola caddaynayso, balse weli ma ka fakartay dhibaatada caafimaad ee ka dhalan karta haddaad heli weydo muddadii lagugu talagalay inaad hurdo. dadka qaar oo baraha bulshada iyo aaladaha kale adeegsado markaad weydiiso waxay ku odhanayaan 8 saac ka hor hurdo igama imaanayso ama ma seexan karo. waa kan dhakhtarka oo mar kale sharaxaya dhibaatada caafimaad ee laga dhaxlo soo jeedka faraha badan ee habeenkii. runtii qofka hurdo hata wuu waalan karaa. hurdawaaga qofka hata waali baa kula soo darsi karta. caafimaadkan wax bay u dhimaysaa. maxaa yeelay jirka inuu nasta. jirka haddaadan hurdaynin jirka ma nasanaya, maskaxda ma nasanayso, jirka ma nasanaya. marka jirka haddii uu waaya nafsiga nasashada haddii qofka uu waaya marka immunitygiis ayaa hoos u dhacaya. haddii immunitygiis hoos u dhaca macnaha stress waay moogta. haddii qofka stress uu ku furmo immunitygiis hoos u dhaca. haddii immunity hoos u dhaca markaan cudurro badan ayaa kula soo darsi kara. waalida ay ka mid tahay iyo cunto xumo hataa waxaa kugu dhici kara waxa la dhahaa indigestion cudur la dhahaa ayaa jira. maxaa yeelay qofka hadduusan hurdaynin ama uu fikira waxa la dhahaa waxaa jirta hydrochloric acid oo qofka calooshiisa ka imaanaya. sax hata alsas way kugu dhici cudurrada alsas la dhahaa soomaalida badan ay qabta wuu kugu dhici karaa. waali baa kugu dhici karta. maxaa haddii madaxa uu nasanin way kugu dhici kartaa. waxyaalo badan baa jiri kara. khubarada caafimaadka waxay ku talinayaan in dadka si dhammaystiran habeenkii hurdo u qaataan 7 ilaa 9 saac, taasi oo u sahlaysa in si dhammaystiran subaxii ay howlahooda u gutaan. runtii hurdada waa muhiim qofka inuu ogaado. waana wada ogsoonahay hurdada waa muhiim. dadka waa inay fahmaan. haddii mataqaana hurdawaaya cudur ahaan uu kugu dhaco markaan inaad dhakhtar la doonatid oo lagula taliya waa lagama maarmaan. laakiin mataqaana hurdawaaya qofka asaga dabeeca ayaa jirta. maxaa yeele haddii aad film daawanaysa adiga hurdada marid, haddaad media waxyaala kale ku mashquulsan haddana adiga hurdada mataqaana wixii hurdalaanta ku keeni waad fahmaysaa. marka qofku waa inuu ka gaashaan waxyaala arrinkaa. si kastaba ha haatee waxaad u baahan tahay inaad jirkaaga nasiso oo aad wakhtigii lagugu talagalay hurdo. aday ku jirtaa inaad kala doorato in caafimaad darri ay kugu dhacdo ama aad waddadii lagugu talagalay marto.